baabu اliimaan biاllahi afضal اlacmaal baabkii waxaan ku soo jirray kitaabu اliimaan waxaa inoo dembeeyey taariku salaa iyo xukunkiisii. aliimaanu biاllahi subxaanaه wa tacaala afضal اlacmaal, in ilaahay la rumeeyo inay tahay acmaasha midda u khayr badan ee u fadli badan buu baab yahay. qaala اlimaam raximah اllahu taعala waxadaثna mansuur bn abi musaaximin qaala xadaثna ibrahim bnu sacd الzuhri قال وxdثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد الزهري عن بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سحاaبي wuxuu hi سئل رsuuل اللhi rasuulka ilaahay baa la weydiiyey صلى الله عليه وaله وسلم أي الأعماaل أفضل أعmaaشha teebaa nabi alla u fadli badan أعmaaشha khayraadka طaacaadka alla loogu dhowaado midee baa u khayr badan oo u fadli badan. faqaala nabigu wuxuu yihi fii jawaabihi iimaanu biاllah ilaahay oo la rumeeyo alla rumayn iyo iimaan alla oo laga helo ayaa u khayr badan. qaala saa'ilkii wuxuu yidhi mar labaad uma maada nabi allow maxaa xiga iimaanu biاllahi maxaa ku xiga? qaala suban wuxuu yidhi aljihaadu fii sabiili اllah, jidka ilaahay lagu halgamo oo lagu dagaalamo oo gaalada iyo cadowga ilahay layska dhicisho ayaa u khayr badan oo ku xigta. qaala saa'ilkii wuxuu yidhi uma maada, bacdu nusaq qiilay dhigahayaan, meel walbo qaala ku jirta qiilay dhigahayaan. uma maada nabi allow maxaa xiga iimaanu billaahi garanay, darajada labaadna aljihaadu fii sabiili llahi waanu garannay, midda saddexaad maxay tahay nabi allow? qaala subanu wuxuu yidhi xajun mabruurun, xaj la barakeeyey, xaj aan lahayn macsiyo, waa xajun laa fisqa walaa ihma fiih, ama waa xaj aan mukhaalafo diineed lahayn, xaj la barakeeyey ama biri lagu sameeyey. xajun mabruurun fiihi baa loo jeeda, waa xaj gudihiisa biri iyo samafal iyo wanaag lagu sameeyey, bimacnaa ilaahay lagu adeecay oon rabbi lagu caasiyin. wa fii riwaayati muxamed ibni jacfar, xadiidkii moxamed ibni jacfar waxaa ku jira ibni ziyaad oon ku jirin xadiidka mansuur ibn abi musaaxim, waxaa ku yimid iimaanu billaahi wa rasuulihi, iimaanu billaahi wa rasuulihi. intaasuu kala duwhaya ilaahay iyo rasuulkiisoo la rumeeyo. riwaayadii horena waxay ahayd iimaanu biاllahi faqad, sida riwaayadii marka u dambaysay. waxadaanii xadiidka waxaa kaloo ii tabiyey muxamed bnu raafic annaysaburi wacabd bnu xumayd can cabdiلrazaaq qaala ahbaranaa macmar can الzuhriyi bihada اlisnaadi milahu, sanadkan oo kaleu noogu tabiyey xadiidka aynu soo maroo kale. wuxuu u jeedaa gebagabadu macmar can الzuhri iyo ibraahim ibnu sacd can الzuhri, labadaasaa ismutaabiceeyey. xadiidkuna ibraahim ibnu sacd waxaa ka waranaya laba wadaado, midna uu yahay mansuur ibn abi musaaxim, midna uu yahay moxamed ibnu jacfar ibnu ziyaad. intaasuu sheekhu u jeeda. xadaanii aburabiic الزahraani wasmuhu sulaymaan ibnu daawuud qaala xadaana xamaad ibnu zayd ibnu dirham albasri qaala xadaana hishaam ibnu curwa qaala waxadaanii khalf ibnu hishaam albazaaru wاllafdu lahu qaala xadaana xamaad ibnu zayd. qaaladaa dambe iyo waxadaana muslim baa iskale, waa sanad labaad oo ka cahay. ayb xadidka hore wuxuu ku joojiyey hishaam ibni curwa. qaala muslim wuxuu uhi waxadaana khalf ibnu hishaam albazaaru wاllafdu lahu, lafdigaan sheegi doona waxaa iska leey khalf ee ma laha aburabiic. qaala xadaana xamaad ibnu zayd can hishaam bni curwata can abi muraawixin اleyثi can abi darin qaala qultu ya rasuula اllah, maxaa rasuulka ilaahayow ayu lacmaali afdalu, daacaadka alla loogu dhowaado keebaa u fadli badan? qaala nabigu wuxuu ihi aliimaanu biاllah, ilaahay oo la rumeeyo, wاljihaadu fii sabiilihi, jidka ilahay oo lagu dagaalamo o lagu halgamo. nabigu waa isku qabtay midaan dambe, wuu isku qabto aliimaanu biاllahi wاljihaadu fii sabiilihi. qaala wuxuu yidhi saraawigu qultu waxaan idhi ayu riqaabi afdalu, qoor la xoreeya teebaa nabi alla u fadli badan? ay riqaab jamcu raqaba, addoommada muslimiinta ee gacanta ku jira ee bini aadamku ay hantaan, xorayntooda midaba u fadli badan? qaala nabig wuxuu uhi anfasuhaa cinda ahliha, midda u qiimo badan dadkeeda ama dadka iskale agtooda, dadka iskale midda ula qiimo badan. xoolahaada isku qiime isku namuun ma aha, way kugu kala sarreeyaan, waa kala darajooyin, isku lexjecla ma aha, isku qiimo ma aha, isku taya ma aha. anfasuhaa midda u qiimo badan baa u fadli badan in la xoreeyo, cinda ahliha ay cinda asyaadiha wa maalikiha baa loo jeeda. wa akaruhaa midda u badan samana xagga lacagta, suuqiya sayladana midda u qaalisan, qiimo ahaan iyo tay ahaanna u fiican, sicir iyo suuqna u qiimo badana u qaalisan baa taas marka waxaa weeye ajruki calaa qadri nasabiki oo kale weeye, ama calaa qadri nafaqatiki.
qaala wuxuu yidhi saxaabigii qultu waxaan idhi fain lam afcal nabi allow haddaanan yeelin riwaayaadka xadiidku uu leeyahay fain lam astaiic baa ku yimid macnaha saasaa loo jeedaa haddaanan yeelin kas oga taga ma ahee nabi allow haddaan awoodi waayo inaan wax xoreeyo oon qoor qaali ah xoreeyo maxaa markaas ajri ii noqonayo iigu xiga qaala nabigu wuxuu ihi tuciinu waxaad kaalmayn daa'ican saasaa ii dhigan bacdu nusakna waxay qoraan tuciinu saanican saanicaasaa yaa loo badan yahay inuu ay sidaa riwaayadu tahay sidaasaa loo badan yahay wadaadana way kala qaadeen riwaayada zuhri iyo riwaayada hishaam bay kala qaadaan si kastaba noqotee tuciinu waxaad kaalmayn daa'ican nin dhunsan nin baylaha ah hantidii caruurtii reerkii wixii o dhan baa baylaha ka abaad garab geli wey ama caruurta usii ilaalin ama xoolahaad u dhowri ama gurigaad u ilaalin wuxuun baad ka caawin daayacan waa nin dayacan inagu waynu dhahnaha dee waa nin dayacan ayib dhunsan baylaha ah ciyaalkiisii iyo ahalkiisii iyo reerkiisii iyo xoolihiisi aw amase haddaad nin daayaca aad kaalmayn weydo tasnacu waxaad uxu samayn liakhraqa nin aan sanca aqoonin tasnacu liakhraqa akhraqu waa aladii laa yuxsinu sunca ninkaan farsamada aqoonin een waxba samayn karin dhiil ma qoran karo oo muxuu ahaay wadaan ma samaysan karo oo wuxuu hagaajisan kara ma jiro oo daab ma goosan karo waa allow sahal marka sidana la dhahaa oo kaasa mobayl cusub hadduu soo gato xataa bateri kuma xaraysan karo marka waa in loo habeeyo wey ayib aw tasnacu waxaad wax u samayn liakhraqa ninaan saanicayn waxba aan samaysan karin baad u qaban lafdigan dambe marka aw tasnacu liakhraqa waxay leeyihiin wuxuu rajaxayaa ka hore inuu yahay saanic inuu yahay tuciinu saanican nin farsamo yaqaanaad caawin haddii aad farsamo yaqaan weydo oo midaan waxba aqooni aad aragtana waad kaalmayn saanicu laftirkiisu waxaa loo hormariyey culimadu leeyihiin waxaa loo hormariyey ruuxa saanica ah waa laga ilduufaa ninkada hebel waxba asagoo kaalmo oma baahane maxay waa ninkaa quruxsan ee cas ee labisan ee xaragoon haya waana baahi baa nafta ka goysa ninkii sancu yaqaanaa laakiin sancada wuxuu u bahan in la garab istaago oo maadadii loo keeno oo lagu caawiyo dadku marka saanica waxba uma taraan ee waxay caawiyaanoo garab istaagaan ninkan waxba aqoonin ayib marka yaan la iloobin weye saanica laftirkiisu kaalmu u baahan yahay tuciinu saanican nin farsamo yaqaanaad caawin ood garab geli ood wax u qaban aw amase tasnacu liakhraqa ama nimaan sanca aqoonin baad wax u qabanaysa howlaha miyibay ku badan tahay aad loogu baahi qabaa qultu waxaan ihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ara'ayta bal ka war in dacufta haddaan mxuu ahay ka taag dhigo oon ka daciifo can bacdi alcamali camalka barhkii haddaan kari waayo yacni wuxuu u jeeda acmaashan khayrka badan aad sheegtay tuciinu saanican aw tasnacu liakhraqa ama qoor la xoreeye ah haddii aan ka cajiso ama aan mxuu ahay ka taag daraado oo aan awoodi waayaba min xayu alqudra wاlistitaaca maxaan sameeya qaala nab wuxuu takufu sharaka can الnaas haddaad muslimiinta waxba tari weydo takufu waxaad reebaysaa sharaka sharkaada iyo horartadaada yaad caninnaas ummadda ka reebaysa naftaadaad ka xaslan waxba dhib ha u geysanin in lam tanfac akhaaka falaa tadurahu dig wey fainahaa kafigaasi iyo naftaadoo sharka aad ka celisaay sadaqatun sadaqa wey minka adiga kaa timido calaa nafsika naftaadaad ku sadaqaysat waa sadaqa adiga kaa timid oo kugu noqotay ayib inaad noqoto nacfi mutacadi ah ood ummaddii wax tarto ood baahidoodii iyo bugtadoodii iyo dhibkooda wax ka qabato iyo inaad adugu aadan dhib u geysan labadaa mid un yeelo wey marka ta u dambaysa وxadثnي محمد بن رافع وcبد بن حmayd qاala cabd wuxuu hi أhbarana وqاala بن rافع wuhi xadaثna intaasuu kala duwaya imaamku nina wuxuu yihi أhbarana nina wuxuu yidhi xadaثna xadaثna cabدالرaزاq qاala أhbarana mcmر بن rاشhid أbu curwaة اليmاني عن الزهري عن xabيب mولى curwaة بن زbayr عن curwaة بن زbayr عن أbي murawix الlayثi haddaynu soo marayna عن أbي dri can النabi sal ly slam binaxwihi xadiidka ana soo marro kale xadiid la mid ah mid ku dhow ayb hayra laakin anahu qaala wuxuu yidhi waa kuma ninka odhanhaya xabiib mawla curwata bn zubayr hayra laakin anahu qaala wuxuu yidhi fatuciinu الsaanica ragga marka sidaa qaba waxay leeyiin xadidka zuhrina markuu min ariiq marka uu yahay mxuu ahaayey hishaam bni curwana dhanka ha ku yimaado oo tuciinu daa'ican ha la yidhaahdo markuu ka yimaado min ariiq xabiib can الzuhrina mxuu ahaay min ariiq zuhri ka yimaadana ha la yidhahdo mxuu asaanic tafsiilkaas hadda muuqda
niman baa rajaxa oo kala tafsiiliya almaxfuud fi xadiidi hishaam bni curwa waxaa weeye daa'ican wاlmaxfuud fi xadiidi الzuhrina waxaa weeye saanican niman baa sidaa yidhahda niman waxay leeyihin waa ikhtilaafu nusakh si kastaba noqotee waa laba macnoo saxa fatuciinu waxaad caawin ood kaalin asaanica ninka sancoonahe wax samaynaya aw tasnacu ama waxaad wax u samayn ood u hagaajinba liakhraqa man laa yasnacu shaya ninkan waxba aan qabsan karin